qasaska ay sheegaan inta badan dariska iyo wanaagga loo sameeyo iyo wanaagga lagu gaadha waxaa ka mid ah nin daaci oo reer maqrib ah yaa isaga laftiisa ka sheekaynayo. ninkaas isaga ah waddanka Morocco la yidhaahda ayuu ku noolaa, nin daaci ah oo dadka diinta gaarsiiyo oo dadka diinta ugu yeedha ayuu ahaa. wuxuu yidhi habeen baa anigoo jiifo waxaa riye iigu yimid nabiga sala allahu calayh wasalam. markaas wuxuu yidhi buu yidhi nin maka ku nool oo magaciisoo saddexan uu riyada iigu sheegay. uu yidhi hebel 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 magaciisoo saddexan uu ii sheegay. ninka la yidhahda hebel 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 oo magaalada maka ku nool, ninka isaga u tago waxaad u sheegtaa inuu ahlu janno yahay. waa habeenkii koowaad. subaxii anigoo yaaban oo magaciina magacan garanaya ma aha, xagna magac saddexan baa la ii sheegay, cidda ii sheegtaan riyada ku arkay waa nabi maxamed sala allahu calayh wasalam. maalinkii baan iska joogo, habeenkii baan seexday buu labaad. sidoo kaleete wuxuu yidhi riyadiibu haddana nabiga sal alla alay slam iigu yimaado. markaas wuxuu yidhi buu yidhi hebel 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 u tago waxaad u sheegtaa inuu ahlu janno yahay. habeenkii saddexaad bay riyadii lafteeda igu soo laabatay buu yidhi sidii oo kaleeto. dhaqaale iyo waxbaan isku duwaday. wuxuu yidhi cumraan aaday, waan tegey, makaan tegey, waan cumraystay. cumradii markaan ka baxay aan dhameeyey yaa waxaan raadiyey buu yidhi markaa rag ikhyaar ahaa oo aan isnaqaano reer maka ahaa yaan raadsaday. raggii baan helay. markaas waxaan ku yidhi buu yidhi nin magacaa leh hebel 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 la yidhaahdo kaalay ila raadiyo oo reer maka ah. ninkii isaga ahaa baan wuxuu yidhi raadinay, dad baan weydiinay. qolaa marka waxayna dhaheen buu yidhi ninka aad raadinaysaan sida uu yahay iyo dhaqankiisa iyo shakligiisa iyo suu u yaali iyo raggiinan raadinaya ee khiyaarta ee wadaadada isma laha. ninka nin daaco yaqaani iyo nin tukadi iyo nin cibaadaysta iyo midna maaha. ninkaa iyo idinku munaasib iskuma tiidiina, iskuma qalantaan, waxba ha raadina, iska daaye. waxaan ku yidhi wadaadku iska daaye itusa haddaad garanaysaan. si la iisoo waday baa la ii keenay buu yidhi isagoo meel joogo. ninka wuxuu yidhi markaan ku soo baxnay shakligiisu waa nin aada u qaab daran, waa nin aan daaco lahayn, cibaado lahayn, qaabka ugu yaalla aada la yaabayso, cisyaan iyo maxay ahayd wixii uun ilaahay lagu caasin lahaa wax badan oo ka mid a faraha kula jiro ku dhaqmahayo. isagiina wuu naga argagaxay, annagana waan yaabnay buu yidhi markaan kusoo baxnay. isagii laftiisiina markaan kusoo baxnay wuu nala yaabay buu yidhi nimankan maxay kaa soo dooneen buu is yidhi. waan u yeedho waxaan idhi buu yidhi hebel 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 ma lagu dhahaa haa. waxaan ku idhi buu yidhi niyo beenna kuuma sheegayo, ilaahay baan ku dhaaranayaa. 3 habeen oo isku xigto yuu riyo iigu imaaday nabiga sala allahu calayh wasalam. 3daa habeen mid walba wuxuu igu lahaa hebel 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 ani adi isma naqaano, magacaaba oo saddexan riyada laygu siiyey, nabigaana i siiyey sala allahu calayh wasalam. hebel 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 u tago waxaad u sheegtaa inuu ahlu janno yahay. 3dii habeenba sidaasaan ku riyooday. maxaad samaysaa? waxaad jannada ku mutaysatay ii sheeg. wuxuu idhaha yidhi niyo anigu waxaan sameeya ma jiro, xaramka intaa ii jira weligay kuma tukan. xaramka intaa ii jiray ii dhow weligay kuma tukan, bal salaada kale xitaa aada uguma fiicni. marna waa iska tukadaa, marna waa iska daaya. xumaan iyo macsiyo hadday ay tahayna waxaa weeye wax badan baan kaga jiraa, wax badan baan sameeyaa. ninka marka wuxuu yidhi waan waaniya. waxaan ku yidhi buu yidhi war aniga been kuuma sheegayo, arrintaas iyadaa waa bishaaro ilaahay xaggii kaaga imaatay, ilaahay baa khayr kula maagay. hadda waxaad samaysaa orooda soo dahaara qado, soo qabiiso, soo weysayso, ina keen xaramkan aadaynaa. intaanan intaa dhihin buu wuxuu yidhi buu yidhi hal arrin ah baan u malaynayaa haddii wax un daaco ah ama maaragtay cibaado ah uu ilaahay ii hayo
وإلهي أكتيس عن خير كجهله هل حبان حسوساب هل كان محيط هاي بعدين يقول يربي نبى درس لها خير يعرض لها نكى سجاو جريودي ما نكو جريودي إنك صاحب الله يبقى محنداركم مري ونلاهي مجلس أو غدارتي مشاهر كان سوق هذا هيو ماشان كشقين يروح مشاهر يقصو قاله إن الله قيبود كديقه ونقيبنا أغونتا يسلانتا عن سيو قيبنا نعرض إذا سيو دارتي إذا هيدا المالين تامرين ولقي ما باجنين بوري إلهي هذا وان ولا waxaan ku yiri waa arintaas ayada kulli wax Ilaahay khayr kula maagay jannana lagu bishaariyay soo qabiiso soo dhahaara qaado oo soo weysiiso inakeen masjidkan sida buu yaalo wuxuu yiri intuu naga tagay buu qabeystay uu weysiistay waan israacnay masjidkii baan aanay iridii aan masjidka ka soo galnay xaramka iyo oohin bilaayo iska qaracmay uu ooyay ilaa wuxuu yiri annaga xitaa uu naga oohiyay rag annaga la socday salaadii baan galay inta la aqimay salaadii markaan tukanay sida uu markaa ka dhigay waa salaad maghrib saddexdii ragcadood markaan dhamaynay sujuudi u dambeysay sujuudi ka horeysay macnaha ragcadii u dambeysay sujuudeedii koobaad munan soo kicin burinki halkay nafta kaga baxday soo sujuudsan khaatamada nooca ah maxaa keenay khaatamada waxa uu keenay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku badbaadiyay oo cibaadada kaliya loo hayay ahayd inuu ihsaan u sameeyay dariskiisi agoonta ah maadaama aabbahood dhintay cid tamwiilinaysay wuxuu haysay meesha ka baxday cid biilaysay iyo cid kor taagan aynan jirin yaa wuxuu isku xil saaray asagoo sidiisan kayta muqassir ah oo cibaado aan ku fiicnayn iyo laakiin wuxuu isku xil saaray oo uu maartay dusha iska saaray xuquuqdoodaas inuu ilaaliyo uu mushaarku qaadan hayay intuu laba qaybood ka dhiga qaybtoodana waa iyaga siiyay qaybna uu reerkiisa ku bish tii iyadahayd wuxuu ka dheefay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u khatimay khatimo wanaagsan Ilaahay khatimo wanaagsan aan nasiiyo khatimo wanaagsan inuu Ilaahay uu khatimo ayuu ka dheef oo isagoo sujuudsan salaad waajib ah oo farad ah Ilaahay ku leeyahay tukan hayo حرمك إلهي أي تاني ماشوا كنت كان هي كسر جسني هاي هل كائن نفتك كجبحة كده من أي دبوده أرنتي ونكون قصر رياضة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه صدق بين وشجع نكاس سجين وأهل الجنة إله سبحانه وتعالى وحمد دي سنة إنه نقدر يكون حقوق ذا درس كذا إلى ليوقع كذا إحسان السمايه وأنا أقفله dhibkoodii iyo wixii rafaad ay kaga iimaanaya xaqoodana u dulqaato oo maxay ahayd dulqaad u yeesho kadibna uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku daro kuwa uu jecel yahay qiso ayaa jirtay carabtu ay ka waramaan nin baa saddex wiil dhalay waa nin carbeed maskaxda carbeed baa lagu qiyaasaa ama lagaga hadlaa saddex wiil ayuu dhalay saddexdii wiil uu dhalay mid buu dareemay inuuna isagu dhaline islaantu intay xaaraan samaysay in dambiga uu ka calool galay saddexdii wiil baa saddex Cabdallah u bixiyay Cabdillaahi buu yiri kii hore labadii kale ka dambeeyayna wada Cabdillaahi buu u bixiyay sakaraadkii baa u yimid ii kaalay buu yiri namadayda waan idin dardaarmiye intuu ka sii jeedsaday buu yiri Cabdillaahi dhaxalkayga waad leedahay keebuu la hadlayaa lama garanayo saddexdii mid kastaaba wuxuu yiri anu Cabdillaahi baan ahaa anigu jeedaa Cabdillaahi dhaxalkayga waad leedahay buu hadana ku celiyay Cabdillaahi dhaxalkayga madihid buu yiri waa anu kuma dhalin buu jeedaa anigu kuma dhalin islaanta meel kale ka keensatay oo xalaal kuma adan dhalanin buu leeyahay wuxuu yiri hadaad kala garan weydiin kaan dhaxalkayga lahayn boqor hebel u taga isaga idin dhexdhexaadin iyo gartaa qaadi doonee odaygii waa dhintay saddexdii ina nin kastaaba wuxuu yiri ninka odayga dhaxalkiisa leh odaygu uu dhalay anigu waanahay boqorkii bay u tageen dhexda markay marayaan bay awr arkeen neef geelo meel ku joogsaday awr bay arkeen meel ku joogsaday mid baa yiri awrka halka ku joogsaday uu ilaa labada indhood mid buu lahaa buu yiri waa aqliga carbeed baa la ayaa qisada loo soo qaataa mid kale yiri awrka halka ku joogsaday uu lug buu ka dhutiyay
mid kale yidhi awrka halkaa ku joogsaday wuu dabala'aa hadda awrku uma muuqdo nin socda ayaa u yimid oo awrkii doonaya markay in yar socdeen wuxuu ku yidhi war awr maad aragteen mid baa ku yidhi ma ilaa haa buu yidhi kii kalena wuxuu yidhi ma dabala'aa haa buu yidhi kii kalena wuxuu yidhi ma dhutiyayey haa buu yidhi maanaan arag bay yidhaahdeen dee ninkii way tilmaameen awrkiisii yaa ku qancinaya nimankani awrkaagii mayna arag waxay yidhaahdeen haddaydaan arag sidee baad awrkayga u tilmaanteen buu yidhi waad aragteen idinkaana u teliyey ee awrkaygii waan idinka rabaa buuhi waanan idinka doonayaa waxa dhacay waxay yidhaahdeen annaguba waannu ishaysanaa awrkaagii maanaan aragay haddaad nagu qanci weyday inaanaan arag dee kaalay boqorkaannu ku soconno aadba noola tag bay yidhaahdeen boqorkaasi hayna dhexdhexaadiyeen isna wuu raacay iyagoo afara bay israaceen ninkii baa yidhi awr baa iga lumay awrkii iga lumay markii aan weydiiyey way tilmaameen 3 tilmaamooduu lahaa ila'aan iyo dabala'aan iyo dhuti bay ku sheegeen haddana maanaan arag bay yidhaahdeen nimankani boqorow awrkaygii iyagaa u teliyey wayna dafirayaan bal indhaaday googar eeg buu yidhi boqorkii baa yidhi haddaydaan arag aaway kii yidhi ma ila'a kii baa gacanta taagay war haddaadan awrka arag inuu ila'a maxaad ku garatay buu yidhi wuxuu yidhi waxaan ku gartay geeduu daaqay baan arkay oo dhinac buu ka daaqay geedaadu magoolay oo uu dhinac ka daaqay baan arkay waxaan fahmay buu yidhi hadduu isha kale qabo inuu dhinacan kalena ka daaqi lahaa ee ishii dhinacii uu ka isha ka qabay uun ayuu geedka ka daaqayay buu yidhi adigu waan ku fahmay buu yidhi iska tag kii yidhi ma dabala'a awrku ayuu u yeedhay oo wuxuu yidhi inuu dabala'a maxaad ku garatay buu yidhi wuxuu yidhi geelu markuu saalaynayo meeluu ku saaleeyey baan arkay buu yidhi markuu saalaynayo saaladiisa dabadaa kala reebta kolkaa way isdaba gashaayoo in cabbaara ayay saaladu ku sii daadataa buu yidhi waxaan arkay meeluu saalaynayo mar quruu ku sii wada daayey buu yidhi waxaan fahmay buu yidhi dabadii kala reebaysay awrkani inuuna lahayn oo halkaa saaladiisa ayaan u deliishaday buu yidhi adiguna iska teg buu yidhi kii yidhi ma dhutiyayey ayuu yidhi maxaad ku garatay inuu dhutiyayey haddaadan arag wuxuu yidhi waxaan arkay meeluu ku joogsaday oo cagta saani uma wada saarin ee barbar buu ka saarayey boqorkii xukun buu riday odhanaya nimankani awrkaagii mayna arage awrkaagii raadsan ninkii nimankii buu u yimidoo maxaad doonaysiin buu yidhi waxay yidhahdeen waannu ishaysannaa aabbahayo markuu sii dhimanayey laba inuu dhalay buu sheegay ay dhexlayaan midina inuuna dhexlaynin buu sheegay inaad noo kala sheegto ayaan rabaa ninkii boqorkaa wuxuu yidhi anaa idiin kala sheegiyo isuga hilib ayuu u soo qalay waan idin marti qaadayaa buuhi geel buu u waabay oo ay buu u soo qalay canjeerana waa u soo kariyey maraqna waa u keenay ilmo yaroo carruura oo ay isleeyihiin hadalka ma fahmayo ayuu ag dhigtay si ay sheekadooda uu ugu keeno oo sheekadan uu uga duulo markaa ilmo yar buu ag dhigtay hilibkii markii la keenay iyo canjeeradii iyo maraqii ayuu midi hadlay wuxuu yidhi boqorkan aynu iskula nimid ee garteenna hayaa xalaal kuma dhalan kii yaraa waa maqlayaa boqorkani xalaal kuma dhalan buu yidhi waaye kii kale ayaa hadloo wuxuu yidhi war hilibka ha taabanina waa hilib aye kii saddexaad ayaa hadlay oo canjeerada gabadh uur laa dubtay buu yidhi canjeeradan laxooxdan aynu cunayno gabadh uur leh ayaa inoo soo dubtay buu yidhi eeg waa caqliga carbeed bay u soo qaataan kii yaraa ayuu boqorkii u yeedhay wuxuu yidhi bal nimanku waxay ku sheekaynayeen ii sheeg wuxuu yidhi nimanku midi wuxuu yidhi boqorku xalaal kuma dhalan midina wuxuu yidhi hilibku waa hilib ayi midina wuxuu yidhi canjeerada gabadh uur laa dubtay boqorku hilibkan waa og yahay inuu hilib ayi yahay isaguna wuu is og yahay siduu yahay oo xantiisa waa hayaa laakiin canjeerada inan aan la guursan carruurnimo uu u haysto ayaa soo dubtay warkii buu is yidhi xaqiijiyo inantii buu u tegey inantii way dafirtay wax uuroo jiraa ma jira bay tidhi dumar buu u diray oo wuxuu yidhi waa lagu qaawini dharkana waa lagaa saari waana lagu baadhi buu yidhi haddaad qiran weyda wixii jira gabadhii waxaa la soo akiday oo la soo hubsaday gabadhan inay uur leedahay si xaaraanana ay ku uuraysatay boqorkii 3 nin buu u yimid wuxuu yidhi aaway kii yidhi boqorku xalaal kuma dhalan wuu aamusayo inuu bad galay ayuu kii ogaaday way is sheegi waayeen
markii la sheegi waay boqorku uu ka gudbo wuxuu aaway kii hilibku waa hilib ay kiiba gacanta taagay maxaad ku garatay buu hilib ay inuu yahay wuxuu hilibka caadiga ah baruurtu jiidhka way ka sareysaa hilibka aygana jiidhka iyo lafta dhexdooday baruurtu gashaa bal baruurtani halka hilibka kaga jirta eeg buu yiri baruurta lafta iyo jiidhka u kala dhaxaysaa buu yiri wuu yiri aad ka baxday xujadaadii kii yiri gabadhu uur bay leedahay ayuu yiri aaway kii yiri gabadhu uur bay leedahay kiiba gacanta taagay maxaad ku garatay buu gabadhu inay uur leedahay wuxuu yiri laxooxda naloo keenay dhinac bay buuran tahay buu yiri daawihii gabadhii markay qooshka ay ku shubaysay daawaha dee uur bay lahayd oo lugteeda qabanayso si fiican daawaha uma wada gaadhsiinayna dhinac bay kula yar ciiraysay buu yiri oo caloosha qabanaysay buu yiri bal canjeeradan eeg buu yiri dhinac bay wada buuran tahay waa dumarka uur kale ay astaan u tahay buu yiri markaa inay simi kari waayaan kiina wuxuu yiri waad ka baxday kii saddexaad buu yeedhay oo wuxuu yiri xageed ka keentay adigu boqorku xalaal kuma dhalan aaway waxba ku yeeli maayee cadee buu yiri warkaa ku yahay hays sheego uba soo baxay labadii kale markii la helay uu iska cad yahay ku yahay waxba ku yeeli maayee buu yiri maxaad u socoteen buu yiri inaadna kala xukuntido ka dhaxal kale iyo kuwan dhaxal kale hayn inaad kala sheegto odaygaasi wuxuuna dhalin oo xaaraan ku dhashay yiri saddexdiina ka aniga i gartay ee yiri boqorku xalaal ma aha ka ayaan horta dhaxal kala hayn buu yiri waxay yiraahdeen noo sabab noo sheeg inuuna kaasi odayga dhaxlaynin oo xalaal ku dhalan noo sheeg waxaan ku garanno dadka isku nooca is yaqaan buu yiri dadka isku nooca ayaa is yaqaan kolka waxa way dadkii isku nooca anaga isku nooca buu leeyahay markaa kay gartay isku nooc baanu nahay waxaan uga soconnaa markaa waxa la yiraahdo boqorkan halkuu ka maagay ee uu yiri xalaal kuma dhalan maxaad igu garatay buu yiri inaan xalaal ku dhalan maxaad igu garatay wuxuu yiri ilmo yar baad naag dhigatayo eeg nin wax basaasaya ayaad ahayd buu yiri haddaad aragto dadka warka u kala qaada kolka dadka xalaasha ku dhashay uma badna waayo nin xalaal ku dhashay waxa way uu xishoodaayo wuxuun buu xeeriyaa isagoo xog badan haya ayuu is ilaaliyaa arabtu waxay ku maahmaahaan suduurul ahraar qubuurul asraar bay yiraahdeen dadka xorta ah laabtoodu waa halka sirta lagu xabaalo nin xor ah hadaad sir u sheegato uu la dhiman uu la godgeli hatta hadaad isku dhacdiin kaga aarsa sirtan kuma jirto waa suduurul ahraar qubuurul asraar